وماسنتهاي وقتك وكاga mahad celinayna muddo sanad ayaa ka soo wareegatay markii lagu doortay madaxweynaha Soomaaliya ballanqaadyo tiro badanna way ku yaaleen qiimeyntaada ilaa xagee gaartay bismillaahir rahmaanir rahiim runtii waa su'aal wanaagsan hadda waxaan maraynaa hal sano 3 sano waa noo hartay macnaha ballamadan qaaday ma ahayn hal sano in loo wada dhameystiro waxay ahayd in loo qaybiyo 3 sano insha Allah haduu la yiraahdo xaqiiqatan horta waxaan rabaa inaan u mahad celiyo hal sano laga joogaa waa dhab madaxweynayaashii ugu horeeyay oo runtii ku soo shaqeeyay duruufo adag meelna dalka soo gaarsiiyay annaga marka mas'uuliyadeena waxay tahay inaan meeshaas ka qaadno oo meel wanaagsan aan geeyno si dadka naga dambeeya ay hawsha ugu fududaato anigu waxaan dhaxlay 3 arrimood oo aad iyo aad u adag madaxweynihii ugu horeeyay isla saas oo kale intaasan qiyaas inuu dhaxlay waxay ahayd dalku colaad ku jira dalku dagaal ayuu ku jira muddo 10 sano ah dagaal ayuu ku jiray oo shabaab kula jiray qaraxyo badan iyo dhimasho badan iyo qax badan iyo abaaro badan oo ay koos gareysay ama aamurtay colaadaas tan labaad waxay ahayd dhaqaale xumo institutionska dhaqaalaha oo aan dhisnayn runtii dhaqaale la'aanna dal lama maamuli karo waa adag tahay tan saddexaadna systemkii dawladda oo aad u ahaa aad u jalcisan oo aan dhamaystirnayn oo hadda weli dhismihiisa ku jira saddexdaasna waa saddexda runtii dawladu ay ku kala duwan yihiin dalku waa inuu ammaan yahay nabad yahay dalku waa inuu dhaqaale leeyahay dalku waa in systemka institutionskiisa hay'adihiisa dawladdu ay shaqeynayaan oo ay xoogan yihiin muddo 2 sano ayaad qabsatay inaad ku soo afjarayso colaadda al-shabaab sanad kamid ah waa uu tagay ilaa xagee gaartay aad isleedahay 2 sano qabsanna waa dhab waxaan aaminsanahay insha Allah haduu ay yiraahdo 2 sano dalka in aan meel badan aan ka xoreyno shabaab muddo badan yaa dagaalkan socday dagaalkan runtii waxaan isleeyahay iyada naftigeeda 3 arrimood yaa asaas u ah in laga adkaado shabaab waxa weeye dawladdu horta inay tahay dawlad stable ah oo the system stable ah ee leedahay waxa xasiloon macnaheedu ay tahay wada shaqeyn dhexdeeda ah ee leedahay oo uusan jirin wax caqabado ah iyo wax khilaafaad ah maxaa yeelay marka dawladdu khilaafaad dhex yimaado waxa khasab ah inay ka faa'iideystaan oo inta la isku mashquulsan yahay ama dawladuhu isbedelayaan oo dawlad cusub imaanayso inay ka faa'iideystaan tan labaad waxay tahay oo looga hortagi karo looga adkaan karo kaliya ma qori caaradiisa waa in dawladda ay wada shaqeyn fiican leedahay shacabka Soomaaliyeed ma ku muuqda dib u dhac hiigsiga aad lahaydeen ee la dagaalanka al-shabaab ah runtii horta sanadka ugu horeeya inta badan waxa weeye isbedel iyo ishabeyn iyo isqorsheyn iyo badanta inta badan inaad ogaato waxaad haysato waxaad u baahan tahay iyo sidaad isu diyaarin lahayd marka waxaan aaminsanahay qorshihii aan u baahnayn inaan isu diyaarino waa gabagabo waxaan aaminsanahay wixii hadda ka dambeeya hadduu eebba yiraahdo in ay bilaabanayso operationkii waxaan u baahannahay noo kaashanayna Amazon iyo beesha caalamka 10 bil hadda ka hor ayaad shaacisay dagaalka dhan ah al-shabaab mana jirto wax muuqda oo la taaban karo oo ciidamadu ay gaareen qaladku xaguu ka jira waa wax la taaban karo waa la gaaray waxa la gaaray ciidanka inaan tirino oo tiro koob u sameeyno aan hubsano yaa shaqeyn kara oo taagan aagaga dagaalka ama goobaha dagaalka taagan oo diyaar ah yaa howlgab ah oo aan shaqeynaynin yaa ka maqan meesha oo magac ahaan ugu jira hawshaas way noo dhamaatay waxa noo dhamaaday tababaro aan siino ciidamada aan siino waxa noo dhamaaday isku dhaf aan ka shaqeynayna ilaa hadda noo socdayna isku dhafna ciidankii oo aan maaragtay isdhex gelino waxa noo dhamaaday qalabkii iyo wixii aan u baahnayn oo dagaalka lagu gali lahaa inaan haysano dagaalku ma aha khasbiyan inaan horay ka bilaabayso dagaal awalba waa jiray Soomaaliya ma ilaahin anigu dagaal wuxuu ahaa laakiin mudan madaxweyne markii la arko madaxweynihii dalka oo tuuto xiran
dadka soo hor istaaga ugu baaqa in la dagaalamo al-shabaab la iska celiyo miyaysan ka dhignayn in jawaab degdeg ay ka timaado? waxay ka dhigan tahay dhiirigelinta ciidanka iyo diyaargarow ayay ka dhigan tahay. hawshaasna meel fiican ayay noo maraysaa. ciidankii waa diyaarsan yahay. waxay u baahan yihiin qalabka u baahan yihiin qasbiyan maaha inay dhammaystiran yihiin, laakiin dee wixii aan ku howlgeli lahayn waa haysanaa hadduu ilaha yidhaahdo. dhismaha ciidankaad soo hadal qaaday shirkii London waxyaabihii looga hadlay waxaa ka mid ahaa ciidanka sida loo qaybsanayo. ma ku qanacsan tahay in maamul goboleedyo loo qaybiyo ciidamada qalabka sida? waxaan rabaa inaan si cad aan u qeexo tirada ciidanka iyo siday u howlgalayaan. ciidankan waxa weeye Somali National Army, ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed wuxuu leeyahay hal taliyuu leeyahay. taliyahaas yaana amar ka bixinaya. qaybaha meelahay kala joogaanna isaga amar ka qaadanayaan. macnaheedu waxay tahay isaga magacaabaya, isaga mushaharada, annaga mushaharada bixinayna. marka meelahay kala joogaan kaliya weeye bacdama dee qaabkii dagaalkii uu isbedelay oo waxaan la dagaalayna ay yihiin cadow nagu dhex jira. taasaa keentay inaan isu diyaarino qaabkaas aan u habayno ciidanka qaabkaas. dad badana waxay aaminsan yihiin haddii maamul goboleed lasoo hadal qaado in arinku uu qabiil u dhuranayo. miyaysan ciidanka caqabad ku ahayn? markaan ku leeyahay ciidanka waan isku dhafaynaa ama waan isku dhafnay, waxaa qayb ka ah ciidanku inuusan noqon ciidan lagu leebel gareeyey ama lagu astaameeyey qabiil inuusan ahaan. ciidanku inuu yahay ciidan qaran, astaantii qaranka uu haysto, doctriinkii qaranka iyo wadaniyadda uu leeyahay iyo caqiidadii islaamka uu leeyahay. iyadana runtii hawl fiican yaan ka wadnaa hawshaas isku dhafka ah. mana noqonayo ciidan qabiil. taliyayaasha ciidamada 2 jeer aad bedeshay. ma xulashadaadii aad qaldantay mise si kale ayay wax u qaldameen? xaqiiqatan dee duruufo badanna waa jiraan, hawlo badanna waa jiraan oo dee noqon kara wax personal ah waa jiraan. laakiin waxaa arrintan aan ku dhaafinaa waxaan waa uru isku dhiib. macnaha qof haynaya xil intii la doono ma jiro. haddii loo arko qofkaasi inuu hawshii ka soo baxayana wuu hayn. haddii loo arko qofkaasi inuu hawshii ka soo bixin ama isaga cudurdaar u keenana waa laga qaadaya. waxaa ciidamada caawiya dowladda Soomaaliya saaxiib la ah Mareykanka oo ciidamada intiisa badan caawin fiican siiya. waxay fuliyaan duqeymo diyaarado aanay cidna wadin. waxaa jirta in shacab badan la sheegay inay wax ka soo gaareen. amaradaasna ama waxbaad ka ogtahay, mararka qaarna adigaaba bixiyaba. sideed arrintaas ula socotaa? duqeymaha waa dhab, waa bateen, waana sii badan doonaan. maxaa yeelay dee waxaan rabnaa shabaab iyo argagixisadu inaan ka cirib tirno Soomaaliya muddo kooban oo aan qabsanay 2 sano gudaheeda. marka haddee lagulama dagaali karo keliya ciidanka dhulka keliya, waa inaan helno ciidan cir. dagaalku sidiisana dee wuxuu leeyahay collateral leeyahay, dhibaata yaa laga yaabaa inay daba socoto. waxay xaqiijiyeen Mareykanka aad iyo aad ugu dadaalayaan in ay taargetkoodu uu yahay kaleer, macnaha diiradoodu inay tahay meel ku aadan meesha ay joogaan, aysan ama ay yareeyaan ama aysan jirin dad shacabka ku dhibaatooda. muddo 3 bil ku dhow taliyayaasha booliiska iyo nabad sugiddu waa bannaan yihiin xilalkoodii. sidee isku qabansiinaa dal dagaal ku jiro, taliyaalna aan lahayn ciidamadii booliiska iyo nabad sugidda oo aad ku tiirsanaydeen? waa su'aal aad iyo aad u wanaagsan. waxaa la rabaa in la ogaado shaqada iyo operationku waa socdaa. taliyuhu waa madaxii, waana buuxinaynaa booskaas sida ugu dhaqsiyaha badan. laakiin waxaan caddeynayaa 3 bilood ee lasoo dhaafay markii ugu dambeysay qarax baabuur uu dalka ka dhaco waxay ahayd 28 Oktoobar. kii weynaa oo dadka Soomaaliyeed waxba aan galabsanay ku baaba'een 14 Oktoobar iyo waxa. kii 28 qarax baabuur oo ka dambeeyay ma jirin. macnaheedu waxay tahay dadka hadda jooga shaqo fiican bay wadaan. waana ugu hambalyanaya. waxaa inta aan ciidamada ka bixin
waxaa jira ciidamo maraykanku ay caawin siin jireen oo 10 kun gaarayay oo ciidamada xoogga ah hawshaas sidee uga warqabtay numberka aad sheegtay cadadda aad sheegtay waxaa laga yaabaa inaysan sax ahayn laakiin waa dhab in hakad u galay mushaharadoodkoodii iyo wixii la siin jiray waxaan annaga isku dayeynaa hadduu ilaahay yidhaahdo annagu inaan hawshaasi aan buuxino dhankeen ka buuxino inkastoo aysan budgetka nagu jirin inta badan yaan or inta badan intaas maaha inta kale waa bixinaa mushaharadooda si joogto ah laakiin waxaa laga yaabaa kuwaasi inay ka soo yarto qaylo bacdama aan ku hadlaynay ama aan ku hadlaynayno hakadkaasna uu galay iyagana insha allah hadduu ilaahay yidhaahdo waxaan isku dayeynaa ama xoogga aan saaraynaa inaan qaadno mas-uuliyaddaas oo aan bixino mushaaradooda ciidamada amisom ayaa dowladdu inteeda badan ku tiirsan tahay meelo badanna dagaalada ka qayb qaata waxay bilaabeen inay baxaan ciidamada xooggu ma isku filan yihiin inay ammaanka kala wareegaan amisom muddo 10 sano joogtay hadda waana runtii waaga mahad celinaynaa hawsha howlgallada ay nagula jiraan iyo inay naftooda u horayaan inay gacanna siiyaan ama dowladda difaacaan waxaan ognahay inaysan weligood joogeen waqti ay ahaataba way baxayaan laakiin ma baxayaan sanadaha soo socda 1 sano iyo 2 sano ma baxayaan ilaa annagu aan diyaar u noqono oo aan ka qaadi karno hawshaas oo aan difaaca dalka ciidankeena ku filnaan doono insha allah waxaan diyaarinay wax la yiraahdo transitional plan oo muujinaya sida aan ugala wareegayno amisom goobihii ay joogaan iyo aagagii joogaan ma garanayno intay joogi doonaan laakiin inaan ku talagalno annaga inaan diyaar u nahay oo aan qaadi karno mas-uuliyaddaas dowlado badan oo ciidamada Soomaaliya u soo tababara waxaa ka mid ah ciidamada Imaaraadka ay soo tababaraan ciidamadaas yaa gacanta ku haya ciidamadaasi runtii waxaa tababaray imaaraadka bixiya mushaharkooda iyo qalabkooda xero la yiraahdo Jamaal Gurud ayay ku jiraan insha allah hadduu ilaahay yiraahdo ciidamadaasi waa ciidamada aan u isticmaali doono hawlgallada soo socda aan ku wajahayno shabaab hadduu yiraahdo yaa gacanta ku haya hadda tababarkooda iyo qalabeyntooda iyo mushaharkooda waxaa naga caawiyay dowladda imaaraadka laakiin waxaan rajaynaynaa hadduu eebbe yiraahdo sida ugu dhaqsiyaha badan inay hawlgallada aan rabno ay uga soo qayb galaan waxay ka tirsan yihiin ciidamada qalabka sida iyo ka tirsan yihiin oo iyagaa noo tababaray waxaan bilaabaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan inaan ay u howlgalaan howlgallada aan doonayno shabaabka inaan uga saarno fariisimada ay fadhiyaan inay qayb ka noqdaan hadduu ilaahay yiraahdo marka laga hadlayo ammaanka magaalada Muqdisho waxay tahay meelaha ugu badan ee weerarada isqarxinta iyo beegsigaba ay ka dhacaan ciidamada ayagoo taa isku dayayo waxaa dhacda in wadooyinka si joogto ah usbuuciba 2 jeer la xiro dad badan way ka cabanayaan ma ka warqabta arrinkan waa dhici kartaa laakiin waxaan kuu sheegayaa annagu mas-uuliyad waxaa naga saaran mas-uuliyaddan saaran waxay tahay inaan dadka difaacno inaan protect garayno dadka maxaa yeele waxaan la dagaalaynaa argagixiso oo aan ummadda u naxaynin oo yaqaana sida loogu dhex dhunto dadka marka marmar waxaan helaynaa macluumaad yaan helaynaa oo la leeyahay ama oranaya halkaasa wax ka jiraan dee anagu dadku ma sheegayno sida wax yihiin markii magaalada mudan madaxweyne ay isku xiranto dadku waxay xusuustaan hadalkaagii oo la aaminsan yahay inaad taageero badan ku heshay xilligiisii inaan wadooyinka la xiri doonin haddii aad ku guulaysato maxaa isbedelay waxaa isbedelay xaqiiqda in aan ka fekerno inaan dadka ilaahay baa nafta haya inaan xaqiijino inaan kala dooranno noloshii iyo inaan kala dooranno maxaan ku yiraahdaa wadooyinka inay furan yihiin oo sahal ay noloshu tahay marka haddee waxaa xanuun badan in baabuur soo dhex gala meel intaan wixii sii dayno oo hooyo ilmaheeda u shaqaysanaysa ama aabe ilmihiis usoo shaqo tegay halkaas uu qarax ugu dhinto marka annaga waxay naga tahay inaan difaacnay shacabka inaan yareyno
al-shabaabka awoodda ay shacabku ugu dhex dhuuman karaan ayna u abuuri karaan runtii tii October 14 dhacday oo kale. marka waxay naga tahay taxadar iyo prevention iyo naga tahay inaan ka shaqeyno aan awoodda saarno. ilaahay baa nafta haystaan qofkii gurigiisa ka soo baxay inuu dib gurigiisa ugu noqdo isagoo nabada. waxaa la isweydiin karaa madaxweynuhu ma ka warqabay inay sidan xaaladdu tahay markii uu ballanqaadka noo sameynayay? anigu waxaan ka hadlayay runtii markaan ka hadlayay jidadka xiritaankooda kaliya ma ahayn security waa muhiim maxaa yeelay lama maxaan ku la dayalsan karo waxa ay sameyn karaan. maxaa yeelay waxaan aragnay 500 oo ku laatay October 14 yaan aragnay. marka ma dayalsanayno waxa ay sameyn karaan iyo waxashinimadooda. waxaan ka hadlayay oo qayb ka ahaa aniga markaan baxayo safarka aan galayo kale in jidadka aanan la xirin maalin aan la xirin ama saacado badan aan la xirin. idan nafsada qayb bay ka tahay oo kaliya intaan marayo kaliya laga yaabo inay xiran tahay macnaha daqiiqado inay tahay oo laga yaabo awal saas inaysan ahaan jirin. laakiin arinta ammaanka waxa weey waa mas'uuliyad na saaran inaan ilaalino. ilaah baa nolosha ilaaliya inaan ilaalino inay shabaabka intay saas soo dhex galaan ay dad ku laayaan. bishii June ee la soo dhaafay marka siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliya laga hadlo waxaa jirta in dowladaha khaliijka uu khilaaf ka dhex qarxay. waxaad xilligaas sheegteen inaad qaadateen go'aan dhexdhexaadnimo ku salaysan balse dowladaha qaar ay u arkayeen inaad dhan kula jirsanayseen. maxaad ku salayseen go'aankiina? go'aankeena waxaan ku salaynay anagu waxaan nahay dal islaam ah. waxaan ka mid nahay jaamacadda carabta dadka jaamacadda carabta ku jira waa dad waaleynaa. waxaan doonaynaa dal walba inaan la yeelano calaaqaad wanaagsan iyo macaamil wanaagsan iyo wada shaqeyn iyo iskaashi inaan la yeelano. marka haddii inaan ka goosano xiriir dal waxa weeye waa wax runtii u keeni kara ma aha aniga intaan joogo xukunka laakiin mustaqbalka Soomaaliya dadka xitaa naga dambeeya u keeni kara culays. marka waxaa noo muuqatay inay danta Soomaaliya ku jirto danta dalka iyo dadka ku jirto inaan qaadano dhexdhexaad oo aan dhinacna xigsan oo aan la macaamilno ama saaxiib aan la noqono iyagoo xilligeedii waxaa ka dhashay khilaaf maamul goboleedyada iyo federaalka soo kala dhaxgalay markii la isku fahmi waayay khilaafka sida loo wajahayo khaliijka ka dhacay. ma ka shalayseen go'aankiina? maya weli go'aankeennii hadda waa sidiisii wax iska bedelay ma laha. maxaa yeelay anaga ka mas'uula dalka arrimihiisa umuurihiisa dibadda anaga ka mas'uula oo dowladda dhexe ah dowladda federaalka ka mas'uula. waxaan ku beesgareynay ama aan ku salaynayna ma aha dan shakhsi ah ma aha dan gaar ah ma aha. waxaan ku salaynay danta dalka iyo dadka iyo inaan soo celino qabkii Soomaaliya in anagu aan qaadan karno mowqif aan lagu qasbin. waxaa dadka ku tilmaamay yiraahdaan inaad midnimada aad u jeceshahay. nidaamka federaalka walow aad dhaxashay oo aad u timid dadkii ka shaqeeyay aadan ku jirin maxaad ka aaminsan tahay? nidaamka federaalku waa qaab ama system la isku fahmay oo la isku raacay oo dastuuri ah. marka jecel iyo nacayb maaha waa inaan ku shaqeyno inaan ku dhex shaqeyno wey. laakiin iyadoo saas tahay nidaamka federaalku waxaa la rabaa inuu adkeenayo midnimada Soomaaliya inuu xoojinayo dowladda Soomaaliya inuu xoojinayo uusan kala qaybinayn ama kala qoqobayn dadka Soomaaliyeed. in badan kama hadashid arrimaha Somaliland waxaan ka warqabnaa inaad dhaxashay gal wada hadal la socday oo Somaliland iyo federaalka u socday. maxay u dhaqaaqi laayihiin? doorashadooda hadday dhamaatay bil iyo bar laba bilood ka hor ayaa dhamaatay. insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo waa dib baan usoo noqonaynaa dadkaas waa la heynaa ahna waa la fariisanaynaa waa la xajoonaynaa. waxyaabaha ay ka cabanayaan waa uga garaabaynaa. Soomaali waa isu baahan tahay waa dad waala ah waxaan ku kala duwanahay aysan jirin. marka haddii grievance uu jiro iyo kala aragti wanaagsho ay jirto
ama siyaasado kala duwan ay jirto waxaan isku dayeynaa inaan si fiican oo daacadnimo ku jirto oo waaltinimo ku jirto annagoo u danaynayno mustaqbalka caruurteenna iyo dalkeena annagoo u danaynayna inaan wada fariisanno oo aan si fiican uga wada xaajoonno oo aan isla gaarno waxaan ku wada qanacsannaha kulligeen oo ay u socoto dhanka midnimada. mudane madaxweyne maamulkaaga waxaa lagu dhaliilaa in kooxdii kula ololeysay kuu dhadhowaa inuu weli ku eg yahay nidaam axzaabna aan weli la gaarin maxaa diidan inaad baahisaan oo dadka mucaaradka aad soo gelisaan dowladda? runtii arrintaas waxaan oran karaa waa dacaayad. golaha wasiiradeennu waxay ka kala yimaadeen dad kala duwan oo lagu qaatay kartidooda iyo hufnaantooda iyo aqoontooda lagu qaatay. waa dhab siyaasad walba iyo dowlad walba waxay leedahay dad usoo shaqeeyey oo maxaan ku rahdaa soo shaqeeyey. taas macnaheeda ma aha inaan ka saarayno ama aan fogeynayno ama exclusion aan ku samaynayno dadka kale oo aanan la soo shaqeyn maaha. taas daliil waxay tahay golaha wasiirada kulligood maaha dad campaignka ka soo shaqeeyey ama allaha ka soo shaqeeyey maaha. mucaaradka waxaa jirta in qaarkood la soo xiray in weerara dhaceen oo dad hadlay oo aan hubaysnayn ma ka warqabtay sideese ula socotay? arrintaas sheegtay runtii hadda waa arrin maxkamad taalla. waxaan u daynaynaa dhanka sharciga aan u dhaafno arrintaas. dimuqraadiyaddu waa waxa aan doonayn inaan horumarino dalkan duruufo badan iyo dhibaatooyin badan buu soo maray. waxaan ka warqabnay in maxkamaddu ay soo gabagabowday mise way sii socotaa? sidaan aniga aan ogahay weli maxkamaddii ma dhammaanin, hawshaasi way socotaa. taasaa keenaysa inaan ka hadlin maxaa yeele waa arrin maxaan ku raahdaa maxkamad ay hadda ku howlan tahay. annagu waa horumarinaynaa waana ka shaqeynaynaa dimuqraadiyadda. iyada naftigeeda waxaa la rabaa dimuqraadiyadda naftigeeda inaan lagu xadgudbin oo qof walba uu ogyahay limitationkiisa iyo xadkiisa uu ogyahay. xukuumadda isbedel xoogana ku dhacayay wasiirka arrimaha gudaha, arrimaha dibadda, gaashaandhigga iyo qaybo kale intaba isbedela lagu sameeyay. maxaa qasbay? waxaa aan isleeyahay dee hawshaan qof walba uu hayo waqti u hayaa oo xadadan. macnaheedu waxay tahay waxaani qofka haya waa inuu ku talagalo in laga qaadayo waqtiga noqoto ama uu ka tegi karo anytime uu doonayo. waa qor isku dhiib. maalinba qof baa haya. qofkaas hayana waxaa laga rabaa inuu kasoo dhalaalo adeega maxaan ku rahdaa iyo mandate-ka uu haysto uuna ugu shaqeeyo danaha dalka iyo dadka ugu shaqeeyo. maalin walba waa la isbedelay. maalin walba qof baa cusbaa ibaan, maalin qof horaa ka tegaya. marka waxaan aaminsanahay arrintaasi arrin u baahan in lagu mashquulo maaha. la dagaalanka musuqmaasuqa wuxuu ku ahaa halhays aadna dad badan ay u jeclaysteen. ilaa iyo iminka ma jirto cid loo soo xiray. xaguu maraya? waxaan hadda maraynaa hal sano. halkan sano saan sheegay wuxuu ahaa sanad isugu jira qorsho iyo isdiyaarin. qorshahaas iyo isdiyaarintaas aan ka shaqeynay aan wadnay. waxaan golaha wasiiradu ay xukuumaddu ay gudbisay sharcigii musuqmaasuqa oo hadda hor yaalla aqalka sare. aqalka golaha shacabka waa ansixiyeen oo hadda waxay la taallaa aqalka sare. markuu soo noqdo oo dee sharcigiisa aan hayno yaan bilaabanaa insha allah in aan marsiino qof walba oo ku xadgudba sharciga abaalmarintiisa iyo wuxuu ku adan yahay. agostadii lasoo dhaafay hal mar ayay shacbiyadaadu hoos u degtay. waxaa jirtay dhacdo in cabdikariin muuse qalbi dhagax oo jabhadda ONLF ka tirsan loo dhiibay Ethiopia. xukuumadduna ay arrinkaasi qirtay. sidaad ula socotay? runtii arrintan sida aad og tahay ama la wada ogyahay golaha shacabka yaa arrintan soo fargeliyey oo ah hay-adda ugu sarreysa ee sharci dejinta. waxay ka samaysay doodo badan. aad bay uga hadashay.
waxay ka diyaarisay documentation markii ugu dambeysana waa codeeyeen codeyntaasi codeeyeenna waxaan soo oran karaa waa kama dambeys marka laga hadlayo farmaajo maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha Soomaaliya dhaliilo badan aad horay maamuladii ka horeeyay aad ku dhaliishay ma isleedahay dhaliilihii laftooda ayaad adigu iminka ku dhaliilan tahay gaar ahaan marka safarada laga hadlayo xaqiiqatan safarada waxa weeye safaro loo baahan yahay safaro aan loo baahnayn ama safaradan aado boqolkiiba boqol waa safaro loo baahan yahay oo aan ku horumarinayno ama kor aan ugu qaadayno xiriirka aan la leenahay caalamka marka laga bilaabo tii Kenya aan ku tagay waxay keentay in dadka Soomaaliyeed aan lagu xanimin meesha la yiraahdo wajeer intii ka dambeysana kulli waxay ahayd safaro magaceena iyo sharafkeena kor u qaadayay maqaamkii caalamka aan ku lahayna muujinayay xiriirka aan la leenahay caalamkana adkeenayay iyo iskaashi madaxdii ka horeeyay ee aad dhaliishay mudane madaxweyne safaradooda inaysan muhiim ahayn sidaad ku cadeynaysaa runtii aniga haddee dadka aad iyo aad u dhaliili jiray madaxdii hore maahi laakiin way iska imaanaysaa dib markii campaign lagu jiro way sheegaysaa qofka dhaliilihiisa iyo waxa uu qabtay aniga taas weli lama gaarin maxaa yeelay hadda waxaan marayna waa sanad marka imtixaanka laga qaaday oo ummaddu sheegayso inaan ku baasay iyo waxaad leedahay fursad la siiyo ilaa campaign dambe laga gaaro maya waxaan leeyahay xaqiiqda saxa ah iyo evaluationka iyo qiimeynta rasmiga wax imaanaysaa marka uu ii dhamaado 4 sano laakiin hadda waxa weeye waxaan oran karaa waa xilli bilow waxaad soo hadal qaaday Kenya meel ka mid ah xuduuday darbi ka dhisaysa waxaa la hadal hayaa in gudaha Soomaaliya ay soo galeen oo darbigu halka uu soo gaaray ma la socota arrintaasi runtii waa arrimihii aan kala hadlay Uhuru Kenyatta markii aan is aragnay sanadkii soo dhaafay maxaa isla gaarteen waxaan isla gaarnay oo aan press conference aan wada qabanay in waxa uu ka hadlay waxa laga hadlay ay tahay darbi in la dhiso oo afkiisa ka yiri darbi kaliya ma ah waxaan ka hadlayno waxaan doonaynaa darbiga inaan qaadno oo aan dadka isu furno ganacsiga iyo dadka isu gudbay labada dhinacba macnaheedu waxay tahay ma aha hadii meel iska furan ma aha waa in loo sameeyo meel dadku ay soo maraan custom ah oo post ah dadku ay soo maraan si loo ogaado qof walba waxa uu dhanka kala geerayo marka waxaan aaminsanahay waxaan isleeyahay inaan ka hor dhicin waxa ay iyagu ay sameynayaan halka wax laga dhisayo waa balad xaawo iyo Mandheera inta u dhaxayso halkaasna customer ku sii yaalay oo dadku ay marayeen maxaa loogu baahday darbigan waxa laga yaabi karaa anigu mar rabo inaan ka hor dhaco mar rabo madaxweynuhu balantuu qaadayna waxay ahayd in xuduudka la furayo iyadoo taxadar uu jiro oo custom uu jiro aan aragno waxay ku dambayso gabagabadii sanada tagay mid kalena uu ku bilaabanaya maxay yihiin waxyaabaha kama hadlayno 3 sano soo socota sanadka soo socda waxyaabaha ku qorsheysan inaad gaarto waxyaabaha ay qorsheysan runtii waxa ugu horeeya amniga oo aan xoojinayno haduu Ilaahay yiraahdo tayada ciidanka aan kor u qaadayno tababarkooda ciidanka kor u qaadayno waxay u baahan yihiin nolol ah aan u dhameystirayno iyo agabba haduu Ilaahay yiraahdo isku dhafkan ka hadalnayna aan xoojinayno haduu Ilaahay yiraahdo maxaa yeelay dal aan amni lahayn wax uu ka shaqeyn kara ma laha xaqiiqatan waxaa jira inaan aamino oo waxyaabihii anigu aan dadka ku kicinayay oo aan u tagayay meelaha ciidamadu u badan yihiin waxay ahayd inaan muujiyo dalka inuu ku jiro dagaal dalku dagaal ku jiro oo aan u baahannahay inaan dalka ka xoreyno shabaab macnaheedu waxay tahay taasaa priority ah maaha kulligeen inaan ganacsi wada aadno aan u fakarno dalka inuu nabad yahay maaha marka la helo dalka aan xoreyno oo aan ka xoreyno shabaab
yaa nabaddu timaadaa. nabadda markay timaado yaa la helaa maamul iyo kala dambeyn yaa la helaa. markaasaa canshuur la aruuriyaa, mushahara la bixiyaa, development iyo ganacsi ayaa yimaada. marka waxaan xoogga saaran dadka inaan fahamsiino qof walba oo Soomaaliyeed inuu qayb ka noqdo dib u xoreynta dalka waan uga xoreynayna shabaab si aan nabad u helno. haddii aynan taas aynan focus ka saarin wax kastoo aan sameynayno, hadday noqoto in dadku ay ganacsi aadaan ama nolol ay raadiyaan, ma imaanayso. maxaa yeele dalkii weli maalin walba qarax baa ka soconaya, dhibkiina waa taagan yahay, amni xumadiina waa jirtaa. inaan dadka ku baraarujinno inaan dalka ka xoreyno shabaab, oo qof walba oo Soomaali ah kaliya aan loo deynin ciidamada aan loo deynin, qof walba oo shacab uu qayb ka qaato sidii dalkaas aan uga xoreynayn shabaab. muhiimadda labaad oo aan rabo inaan wajaho waa dib u heshiisiinta, oo hadda aan bilaabay safarkii aan ka imid gobolada dowlad goboleedka Puntland iyo Galmudug, oo aan ku dhamaystirnay ama meel fiican ay noo marayso ahlu sunna wal jameeca iyo dowlad goboleedka Galmudug ay isugu yimaadeen, oo hadda aan gelayno wixii loo baahan in la dhamaystiro. arrinta gaalkacyo naftigeeda meel fiican ayay noo maraysaa, oo dadka gaalkacyo degan waxay qorteen heshiis ay ku heshiiyeen u baahan laakiin in lagu sameeyo dhaqangelin ama implementation lagu sameeyo. gobolada dhexe dhowr meelood iyaga naftigooda waxaa ka bilowday dib u heshiisiin, oo maantadan aynu joogno Sheekh Shaakir wasiirka koowaad Galmudug uu maanta joogay Caabud Waaq iyo Balanbal uu dhamaystirayay dadkaas halkaas jooga khilaafaadkooda. marka sanadkan hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan tegaynaa meel walba si ummadda Soomaaliyeed ee waalaha ah aan u nabadeenno, aan u heshiisiino. taasna waxa ay siinaysaa fursad aan ku adkeynayno amniga oo aysan al-shabaab aysan uga faa'iideysan. arrinta saddexaad waxay tahay dhamaystirka qabitirka dastuurka, oo isaga naftiisa meel fiican noo maraya. guddiyadu ay aad uga shaqeynayaan, consultation iyo wada tashi badan ay wadaan. insha Allahna waxaan rajaynaynaa inay taasi ay waxaan ku raahdaa na gaarsiiso, inay taasna gaarsiiso wajigii aan ku gaari lahayn ama qaabkii aan ku gaari lahayn qof iyo cod 2020 hadduu eebba yiraahdo. hawsheedana waa ku dhex jirnaa, oo inclusive politics waa ku dhex jirnaa inaan dhamaystirno. taasna runtii hadda waxaa nagala shaqeynaya dowlad goboleedyada. waxaan ku raahdaa inaan isla fahmno qaabkii aan u gaarsiin lahayn dalka, qof iyo cod aan u gaarsiin lahayn. tan kale oo muhiimka ah waxay tahay inaan dardargelinno kaabayaasha dhaqaalaha, oo aan runtii maalgelin iyo shaqo abuuris aan u sameyno dhalinyarada Soomaaliyeed, oo haddii aanan laga shaqeynin shaqooyinkooda iyo horumarkooda iyo laga shaqeynin, qasbiyan iyada naftigeeda waxay dib ugu noqonaysaa amniga. waxaan hadda soo dhagax dhignay meelo kala duwan oo ah mashaariic, waana kordhinaynaa insha Allah. kuwaasna hadduu eebba yiraahdo oo aan dhagax dhignayna waa dhamaystiraynaa insha Allah. هذا ما سنتهي.